laba beelood oo walaalaca ayaa maanta degmada Baran ee gobolka Sanaag kula kala wareegay 3 magood oo laba ay tahay milxo halka kalena uu yahay degmadani Baran ee gobolka Sanaag. labadan beelood ee walaalaha ah ayaa kala ahaa beesha reer Qaasin ee bahweynta Aadan Siciid iyo bahwadaagta Xuseen Ciise ayaa maanta degmada Baran ee gobolka Sanaag magtaasi kula kala wareegay. kala wareejinta magtaasi saddexda ayaa waxay u dhacday maanta sidatan oo odayaashu iyo nabadoonnada labadaasi beelood ay ku kala wareejiyeen. arrinta iyada ah dhamaystirkeedii kowdii bishii 6 2024 baa la isu yimi waxaa la kala seexday in wixii la isku laaba laga xisaabtamay beesha Aadan Siciid ee reer Qaasin waxaa lagu yeeshay $53,900 beesha bahwadaan Xuseen Ciise waxaa lagu yeeshay $27,000 intii waa la sidaa haddeer baa sida arkaysaan lala kala wareegaya. intaa kadib heshiis waxaa lagu gaaray wixii dambe in shariicada maxamiyada lagu dhaqo aan lagu salayn la oran horeedu isu diri jiray magbaynu kala qaadan jiray shalaynu kala qaadanay aan lagu salayn lagu salayn shariicadaas wixii ka qabto tii hore aan lagu salayn tii hore waa la heshiiyey saarka gacmaha la isku saaray horena waa la isku saaray wixii dambe oo yimaada dacdadan ma khusaaysano oo wax ilaahay keenay shariicadaas lagu xisaabtay haddii alla idmo qaateen sida in lagu dhameeyo maanta ay marayso gebagabadii iyo wixii dadkii wax kala gaareen xaqoodii la kala siiyo maal xaqooda kala siiyo sida lagu dhameeyo wixii intaa ka dambeeyana taladeeda meel baa la dhigtay shariicada islaamka in lagu dhaqmo lagu hogaamiyo wixii maanta ka dambeeya shariicada islaamka أول الإسلام تسلم هاين إلى هذا كل دوا قفية ويسلم الإسلام وقفية إلى إلى قفين وحكى حوالين خلطمين بلا هذا بيوي والله خلطمية والله حرامية وحباك حمانية إنت وحي راسيسا إن لبد odaga Xuseen iyo odaga Qaasin oo maanta isugu yimid goobtan oo isdalka ee ku heshiiyey dhacdooyinka ka dhaca xero warshadgeeli oo aan waxba laga qaban oo kuwa kale dhaxgalaan oo isku sii diraaneen maadaama ay soo dhameeyeen kuwa badan oo dhalinyaro ah odayaal nabadoono maanta aanu u joogno go'aankii u dambeysay oo aan ugu kala qaadan lahayn wixii aanu soo gaaray ilaahayna ogsolasiiyay baa mahadle waxaan u joognaa halkan 3 qodob oo ah inaan xooli kala qaadano nimankii dhacdadu ku dhacdana samir iimaan ilaahay uga siiyo inaguna aynu ku walaalowno inagoo labada beelood oo Xuseen iyo Qaasina qabyaalada xogaan sii gaadi way ugu yar adag tahay dukan kuna ducaysano magiina kala qaadano inagoo dhanna saalayno ogaado ilaahayna in ogaado inta ka gadaal aniga farxad gaar ay tahay ehelkan meesha isugu yimi oo ku heshiiyey geelaa 28 ah oo 128 oo laga rabo reer Qaasin iyo 63 laga rabo absiyaal awoyaal wada Xuseen Ciise bahwada Xuseen Ciise una dhiganta 359 iyo 900 oo reer Qaasin laga rabo bahwada Xuseen Ciise waxa laga rabaa waxay u dhigantaa 63 kaasi 27,000 maanta la kala wareegay inta waxaan u malaynayaa Cabdiraxmaan iyo Maxamed baa carabka sultaanada waa la jiidanayo haddii xoogaa iyagu annana hareerahan u lahaynay waxaanu hayn isdalkii aniga iyo Xasan Mih isdalkii gudaha annaguna hareerahan la soo qabanay shirkani waa nabadayn labada beelood sida loo sheegayna ilaahay qabuul ha nagu siiyee sidan saaka halka timi waa laga soo shaqeey juhdi maskaxi dhaqaale lagu bixin guushana ilaahay baale ilaahay waxaan weydiisanaa sida aan uga soo shaqeyn inuu noogu aqbalo
marxuumiintii ku dhimatay sababtaas halkaa ka timi iyagana waxaan u direynaa tacsi ciddii guryihii ay ka baxeen waxaan leenahay samir iyo iimaan dhammaanna waxaan leenahay tolka guud samir iyo iimaan allah ka sugo bacda salaan sidaa loo sheegay hantiga geela ah oo ah 128 oo laga rabo beesha reer qaas iyo 6 halaad oo laga rabo beesha 63 oo u dhigantaa 128 halaad waxay u dhigantaa 54 iyo 3 halaadna waxay u dhigmaan 27 hantigaas asaaka meesha lagu kala wareegayaa dhammaan waxaanu ku dareennaa beelaha walaalahaya ee madaqadaha kale ha joogana tan aanu ku hormaro ee arrimaha noocaas dhex yaalay cid idiin maqani ma jirto isugu timi labadan beelood oo Xuseen iyo Qaasin way ku heshiiyeen dhacdooyinkii ilaa 21kii istaba joog ahaa oo ka soo bilowday milxo ilaa baran raggii ku dhintay oo marxuumiinta ahaa way ka heshiiyeen sidaa loo sheegay waxayna kaga heshiiyeen dayo waxaana lagu dhammaystirayaa halkan dayadii oo ku dhammaatay oo maanta lagu kala qaadanayo sidaa hore loogu sheegay 128 reer Qaasim bixinayaan oo u dhiganta 53 iyo 900 oo dollar iyo 63 halaad oo ay bixinayaan beesh bahawadaag Xuseen Ciise oo u dhiganta 27 hantida ay kula kala wareegeen waa qodobka koowaad heshiiskoodii sida loo soo sheegay oo ay ku soo heshiiyeen guddida 18 nin ay ka soo shaqeeyeen waa mahadsan yihiin khayr Allah siiyo ragii beeraha milxo iyo halkan lagaga dhisay waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah inaka siiyo iyagana naxariisana loogu ducaynay waxa laga yaabaa gacanka xaqdareeyay dishay kula intaa kadib sida loo sheegay beeraha kale oo tolka waxaan leeyahay lagu dayda oo dhamays oo heshiiya kala guuri maysaan oo kala fogaan maysaan oo tol idinka kiin iska xitaa ma jirto oo ummad idiin maqan oo idiin soo gurmanaysaa ma jirto oo dalku dowlad ma leh bini aadam dadku isagaa dowladiisu ah dadku ka baxsan ma jiraanin sidaa la sheegay dhacdada taariikhda dhacday ka dhacday milxo iyo baran waxa sidaa la sheegay baa laga heshiiyey dadka hawsha isu xil saaray oo isu xil qaamana xagga ilaahaygeena waxaan uga baryeynaa nabadgelyo iyo wanaag maantana halkii waa balaarta waa la soo khatimay sidaa la sheegay beesha reer Qaasin waxay waxa weeye 128 halaad oo u dhiganta 900 oo 28 halaad u dhiganta beesha bahawadaag Xuseen Ciisena u dhiganta 63 halaad 27 meeshana miiska taal hantidii lagu kala wareegi lahaa maxruunada waa laga heshiiyey hawshii dhacday labada beelood waa ka heshiiyeen waxay kaga heshiiyeen nabadgelyo waxay kaga heshiiyeen inay diyo ku kala qaataan bay kaga heshiiyeen diyadiina halkaa lagu kala qaadanayo diyadaasoo ah 27 iyo 3 oo beesha reer Qaasina bixinayso 3 iyo 900 beesha Xuseen Ciise 27 bixinayso arrintaa waa laga heshiiyey waa la isku afgartay marka horeeto anagoo magaca ku hadlaya beesha reer Qaasin iyo kaydaba
waxaanu halka marka hore uga diraynaa tacsi dadkii u geeriyooday labadii xubnood oo ku baxay milxo iyo kiyaarka ku baxay waxaanuna intii ka baxay samir iimaan allaha ka siiyo iyaga naxariista naas sida aynuga heshiinayna ilaahayey qabuulkeeda haynu siiyo oo hore kanina waxa weeye kii aantay kala qaadashada isa saamaxa masiirka ummadda wargudbinteeda ama wax innaga nagu tacalluqo oo labadeena beelood ha noqoto amba islaamka ha noqoto innaga si sharaf badan waa raggaa guddidoo loo saaray oo 18 ah ay uga soo shaqeeyeen masiir fiican bay ku soo fariisiyeen labada qabiil iyo tolkii oo la qaateen maanta hantidii lagu heshiiyey baa lala kala wareegayaa masiirka ummadda codkeediina waa la gudbinayaa lambar 1 tan labadaa beelood masiirkooda labadii nabadoon iyo guurtida fadhida oo tiradeeda aanan sheegi karayn waa la isla qaatay kan maqa waxaa la gaarsiinayaa oo dibadda jira iyo kan dalka joogaba wada dhashay waa run waa xaqiiqa waa dad ehel wey marka nabiga wax la weydiiyay rasuulkeena waxa la yiri rasuulkii Allah su'ila nabiga wax la su'aalay canil iimaan rumaynta laleeyahay ilaahay hal rumeeyo oo qofku ilaahay ha waxido maxay tahay baa la yiri wuxuu yiri nabigu as-sabru wa samaahatu iimaanka hadda ay weydiiseen waa sabr adoonku uu sabro wixii soo gaaray oo naftiisa iyo maalkiisa iyo dadkiisa ku yimi inuu sabr ka sameeyo wa samaahatu iyo inuu saamaxaad sameeyo oo cidii wax ku yeelata uu cafiyo baa rasuulkii عليه الصلاه والسلام حديث كان النبي وحو يري الصبر كنز من كنوز الجنه صبرك وحو كمد يحيى وا كنزيده جنده كميده قيب كميده وي وا صبر برسولك عليه الصلاه والسلام وحو كان النبي يري وما اعطى احد خيرا وعضاء ووسع من الصبر وحو يري النبي قفك الهي مسي عديه كوين صبر خليرا صبر marka dadka dibtu waa ku imanaysa qofna waa geysanaya qofna waa u imanaysa waxa weeye saburka wax ka weyn ma jiro sida magta maanta labada beelood ay kala wareejisanayeen ayaa goobjoog waxa ahaa culimada degmada baran ee gobolka Sanaag uu ka mid yahay Sheekh Axmed oo muddo badan ku soo dhex jiray labadaasi beelood say heshiis iyo magta ay u kala qaadan lahaayeen والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ملك كوباد الله خالق بانو مهد عليني علينا أبوري أما كنت لما شري نوافجيي ترى يا رنتها ناوري ملكي هوري أرنتها أنا نتصي ونقوه قاميي حبد النقاس الدين توقوه يا ملكي هوري ملكو أنا أبوري حبد النقبالي ما توحوا لنا هاي تتكا انت عليك كو وحكا حمد النق وكو اللي لبعضنا وحنا حمد النق إنا حفلة انت عليك ولا لها درس كالمعذرتها وإن شاء الله إله وافدي دمت المصلحة دولة وحنقول صدحين يا هذا إن شاء الله بدين ما يو ألا وحويه يا مروا البابا إله إن لسوق هذا إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سلا وحلينا هاي آيات داسو وحيو دواقيسا إسلام كأردن بيلو جوغبا وكوها ليسا سلا وحلينا هاي ولا المسلم كأردن ولا فأصلحوا بين أخويكم وحي دحدينا هقادسة لعلكم ترحمون الله يدين حديثتين هذا الكلام بدين مايو labadaasi beelood ee walaalaha ee beesha aadan siciid ee reer qaasin iyo waliba bahwadaag xuseen ciise ayaa bulshada kale ee deegaanka degta waxay ugu baaqeen inay sidan oo kale ay nabad ku wada dhamaystaan waxyaabaha la soo darsooy ka mid yihiin dilalka iyo falalka dhaca waa Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur